Bismillahirrahmanirrahiim. Waanigoo Macalin Maxamed Ibraahim. Waxaan halkan ka sii wadanaynaa casharadii taxanaha inoo ahaa aynu ku baranaynay Basic of Accounting. Kani waa casharkii labaad. Maanta waxaanu baranaynaa sharciyada debit and credit. Debit and credit waa very important marka la joogo accounting-ka. Qof kastoo accounting-ka ama xisaabaadka ku shaqeeya waa in uu fahmaa ama uu yaqaanaa debit and credit ama qof kastoo accounting-ka baranaya. Markasta accounting ama xisaabaadka ku shaqeynayso markasta waa la kulmi kartaa ama markasta waa arkaysaa ama waa la kulmaysaa debit and credit. Marka waxa waaye muhiim inaad mataqaanaa fahanto debit and credit sida u shaqeeyaan. Casharkii ka horeeyay waxaan soo qaadanay types of accounting. Accounting intuu u qaybsamo. Accounting wuxuu u qaybsamadaa 3 cashar ayuu qaybsamadaa. 3 qaybood ayuu qaybsamaa accounting marka la joogo traditional approach. Waxaa ta koowaad oo ah personal accounting, real accounting iyo nominal accounting. Personal accounting oo ah account shakhsiyadeed iyo real accounting account real ah oo sax ah iyo nominal accounting oo ah account magacaaban. Personal accounting sidee mataqaanaa ugu shaqeysaa sharciga debit and credit. Wax kastoo debitka imaan waa maxay waa the receiver. Wax kastoo receiver aad hesho waa debit side ama aad basho. Creditkana waxaa imaanaya the giver. Wax kastoo aad bixiso waa credit. Real accounting akoonka saxda ah sidee buu ugu shaqeeyaa debit and credit. Debitku waa maxay what comes in. Wax kastoo ku imaanaya waa debit side. Creditkuna waa maxay what goes out. Wax kasta oo ka baxana waa maxay waa credit. Nominal account akoonka magacaaban debit waa maxay all expenses and loss. Wax kasto expenses oo kharashaadku waa maxay waa debit side. Creditkana maxaa tagaya all income and gains. Wax kasto income oo dakhliyan waxay tagayaan credit side. Marka debit and credit waxay macna yeelanayaan marka accounting yimaado ama xisaabaadku yimaado ama transaction ama dhacayso ayay macna sameynayaan. Hadda tusaale fudud ku siiyo aan ku dhaho waa maxay minus ama plus ku dar ama ka jar. Ku dar ama ka jar wax macna yeelamayso haddii meesha xisaab oo leen. Marka xisaab meesha imaato ku dar ama ka jar macna ay yeelanaysaa. Tusaale ahaan hadda ku dhaho 2 lagu daray 3 waa imisa waa 5 oo lagu daray waxa isticmaalay plus 2 lagu daray 3 waxa ku yiri waxay noqotay 5 plus marka plus adeegsaday ama lagu daray muxuu macna ay yeelatay oo 5 ay noqotay. Tusaale kale hadda ku dhaho ka jar waa maxay ka jar waxa leedahay hadda ku dhaho minus waa maxay minus waa ka jar. Hadda ku dhaho 2 laga jaray 1 waa imisa waxa leedahay waa 1 oo laga jaray waxay macna yeelatay markii xisaab meesha timi oo 2 laga jaray 1 waxa soo baxay waa 1 oo laga jaray waxay mataqaanaa minusku macna yeeshay marka meesha xisaab timi. Marka debit and credit sidaas oo kale waxay macna yeelanayaan marka transaction ama dhacdo ayay macna yeelanayaan ama debit inaad tahay ogaanaysa ama credit inaad tahay ogaanaysa. Marka wax kasto left side-ka oo qaybta bidixda waa maxay waa debit. Wax kasto right-ka oo credit side-kan waa maxay waa credit. Wax kasto hadda bidixda midigta ah right waa midigta waa maxay waa credit. Hadda isla eegno sawirkan kale T accounting leftiga waxa imaanay qaybta bidixda waa maxay waa debit side ayaa imaanaya oo DR ayaa loo soo gaabiyaa. Right side qaybta midigta maxaa imaanaya credit oo waxa loo soo gaabiyaa CR oo waa tan iyadoo shortkada debit waxa loo soo gaabiyaa DR credit waxa loo soo gaabiyaa CR. Marka maanta casharkan inta ay ku saabsanaanaya waa very important inaad fahanto debit and credit sida u shaqeeyaan. Markan casharka ku xiga ayaan arki doonaa sida saxda ah ama practical arkayna debit and credit sida u shaqeynayaan marka la joogo traditional approach oo dhacdooyinkii ayaa isticmaalaynaa ma garatay. Marka casharku inta ay maanta nagu joogayaan